bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey gudaha soomaalida iyo caalamka qodobada daawo doontaanna waxaa qayb ka ah madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro oo tallaabooyin u qaaday dhinaca iyo gobolka owdal sidoo kalena booqday dhaawacyadii ugu badnaa oo ku waxyeeloobay shaqaaqooyinkii ugu dambeeyey ee ka taagnaa magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal haddaba cabdiraxmaan ciro muxuu waqti xaadirkan u ballan qaaday dhaawacyada iyo dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay shaqaaqadii ka dhacday magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal sidoo kale yaa ku helinaya booqashadan waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee arrimahaasi ku saabsan xilli dhowaan barasaabkii loo magacaabay gobolka owdal sidoo kalena ay dadka shacabka diideen weli uu ku sugan yahay magaalada hargeysa qaybna uu ka ahaa booqashada madaxweyne cabdiraxmaan ciro ee uu ku tegey isbitaalka magaalada hargeysa si uu wax uga ogaado xaaladda guud ee dhaawacyada qorshayaasha madaxweyne cabdiraxmaan ciro dejiyey iyo sidoo kale wadahadallo si deg dega kaga bilaabanaya deegaano ka tirsan galbeedka somalilan ayaan xogo kala duwan kaaga hayaa sidoo kale ciidamada militariga somalilan ayaa markii ugu horreysay tallaabooyin kala duwan qaaday waxaana la xaqiijiyey in ciidamada militariga somalilan qaybahooda kala duwan si gaar ah qaybta deegaanada galbeedka ay xaqiijiyeen amniga magaalada saylac iyo deegaano kale oo ka tirsan xadka ay wadaagaan wadamada jabuuti iyo sidoo kale somalilan waxaana xogii ugu dambeeyey ama muuqaaladu ay muujinayaan somalilan iyo ciidamadooda oo wata dabaabaadka dagaalka kuwaasi oo ku sugan xadka jabuuti iyo somalilan si gaara gobolka saylac ciidamadii maleeshiyaadka beesha ciise iyo ciidamada somalilan oo is arkay sidoo kalena waxyaabaha ay isdhaafsadeen iyo saraakiisha ciidamada somalilan oo qaatay amarka madaxweyne ciro iyaga oo wax dhibaato aan u geysan maleeshiyaadka iyo xitaa dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhinaca xadka haddaba somalilan madaxweyne cabdiraxmaan ciro qorshihiisa miyay ku socdaan oo ahaa in dadka iyo jabhadaha kala duwan ee gobolada galbeedka somalilan si isku siya loola dhaqmo taasina ay keeni karto in dowladdu ay noqoto dowlad u dhexaysa guud ahaanba shacabka reer somalilan xogo iyo macluumaad dheeraada ayaan kaaga hayaa taliska cusub ee halkaasi loo magacaabay iyo tallaabooyinka ay qaadeen qodobada kale xasaasiga daawo doontaan waxaa qayb ka ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xalayto waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah ama golaha samata bixinta soomaaliyeed kulamadaasi iyo waxyaabaha looga hadlay xilli ay u muuqato in mucaaradka soomaaliya laba garab ay u kala jabeen garab uu hogaaminayo shariif sheekh axmed iyo sidoo kale garab uu hogaaminayo maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabihii lagu ballamay maxaa ka jira in golaha samata bixinta madaxda jubbaland iyo puntland ay sidoodii isbays usii ahaanayaan kismaayana dhowaan shirarkaasi lagu qaban doono cidda ka qaybgelaysa iyo waxaan kula wadaagi doonaa macluumaad dheeriya oo arrimahaasi ku saabsan qodobada kale soomaalida ka baxsan ee daawo doontaanna waxaa qayb ka ah dowladda iiraan ayaa gacanta ku dhigtay markab shidaal oo siday 6 milyan oo liitar oo nafta ah haddaba markabkan iiraan waa maxay sababta ay gacanta ugu dhigtay warbixinno iyo xogo xasaasiya ayaan kaaga hayaa xilli dhowaan dowladda maraykanka ay gacanta ku dhigtay markab ay leedahay dowladda iiraan oo ku sugnaa biyaha dalka venezuela gacanka hormus oo waqti xaadirkan iiraan ay xoojisay iyo sidoo kale maraykanka iyo reer galbeedka oo baqdin xoogan qaba sidoo kalena ka baqaya in iiraaniyiintu gebi ahaanba gacankaasi ay xiraan maadaama maraykanku uu qaab burcadbadeenimaha ku weerarayo maraakiibta ku sugan venezuela iyo dalalka caalamka qaarkood warbixinno iyo xoga xasaasi ayaan arrimahaasi kaaga hayaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaa daawo doontaan balse marka hore soo dhowaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqon saaxiibada ku xiran waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo sabskaraab keliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman ee suulka saar oo sabskaraab inoo saar janalka mahadsanidin waa hagaag aynu ku bilowno madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa saakay subaxnimadii hore waxa uu booqday dhakhtarka guud ee magaalada hargeysa waxaana halkaasi uu ku booqday qaar ka mida dhaawacyadii dhowaan kuwa soo waxyeeloobay magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal oo shaqaaqooyin ay ka jireen madaxweynuhu waxa uu ka mid noqday ama uu waxa mid u booqday bukaanada isaga oo muujiya dareen naxariis leh islamarkaana xog wareystay xaaladda caafimaad wuxuuna si gaara u xaqiijiyey in qaranka iyo jamhuuriyadda somalilan uu si buuxda u barbartaagan yahay dhammaan dadka ku waxyeeloobay dhibaatooyinkii halkaasi ka dhacay madaxweynaha ayaa wasaaradda caafimaadka iyo maamulka shaqaalaha dhakhtarka guud ee hargeysa kaga mahadceliyey dadaalada joogtada ah
oo ay ku bixiyeen daryeelka bukaanada isaga oo ku bogaadiyey sida xilkasnimada leh oo ay u gudanayaan waajibaadkooda caafimaad oo ay bulshada u hayaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa mar kale waxa uu tacsi u diray qoysaskii iyo waxyeeladu ka soo gaadhay dhibaatada isagoo alla subxaana watacaala uga baryey in caafimaad degdega uu siiyo. madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inuu qaaday tallaabooyin kala duwan kuwaasi oo la doonayo in lagu garab istaago dhaawacyadan, tani oo muujinaysa in madaxweynaha somalilan uu si weyn u doonayo in shacabka reer somalilan si nabadgelyaha ay u noolaadaan, sidoo kalena si walaaltinimaha oo ixtiraam ku dheehan yahay gebi ahaanba gacanta laysku qabsado. waxaa xogaha qaar ay tilmaamayaan in madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro lacaga gaaraya ku dhowaad $5,000 calaa qofkii oo bukaanaba lagu wareejiyey, laakiin lacagahani waxay ahaayeen kuwo si qarsoodiya dadka shacabka ah farta looga saaray, tani oo muujinaysa in madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu doonayo isku haynta reer somalilan iyo sidii somalilan ay u noqon lahayd meel midaysan loogana dhex faa'iidaysan lahayn. cabdiraxmaan ciro ayaa waxa u muuqdaa ilaa iyo haatan qaabka ula macaamilaya xaaladda galbeedka somalilan mid marba marka ka dambaysa dhaliilo kala duwan uu la kulmaya, laakiin waxaa la leeyahay qaabka uu hadda madaxweyne cabdiraxmaan ciro ula macaamilayo arrimahan ayaaba ah kuwo wanaagsan, sababtoo ah gacmo shisheeye ayaa ku dhex jira arrinta gobollada owdal iyo salal, kuwaasi oo doonaya in arrimahan ay ka faa'iidaystaan halkaasina dhibaatooyin kala duwan ay ka abuuraan. sidoo kale madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaa dhowaan waxuu isku diyaarinaya ayaa la yidhi safar uu ku tegayo deegaano ka tirsan galbeedka somalilan, si gaara magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal, waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan in haddaba ciidamadu ay qaadayaan tallaabooyin kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga. wararka ka imaanaya gobolka salal iyo magaalada saylac iyo dhammaanba deegaanada xadka ee etoobiya iyo sidoo kale jabuuti ay la wadaagto somalilan waxay sheegayaan baa la yidhi in ciidamada militariga somalilan si gaara qaybta cusub markan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan iyaga oo si isku mid ula dhaqmaya dhammaanba jabhadaha beelaha samaroon iyo sidoo kale beelaha ciise. ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay qaab wanaagsan ula macaamilayaan ayaa la yidhi dadka shacabka ah iyo sidoo kale jabhadaha kala duwan ee beelaha samaroon iyo ciise, tani oo ku tusinaysa ayaa la yidhi in la qaatay amarka madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan ciro, kaasi oo ahaa in dowladda somalilan ay u dhexayso beelaha samaroon iyo ciise. sidoo kale waxaa la arkay ciidamada somalilan qaybta deegaanada galbeedka iyo taliyahooda cusub, kuwaasi oo wata gaadiid dagaal, dabaabaad waaweyn iyo taangiyo, kuwaasi oo kusii qulqulaya dhinaca xadka ee etoobiya iyo sidoo kale jabuuti marka la joogo deegaanada galbeedka somalilan. waxaana la yidhi sidoo kale waxaa dhowr jeer is arkay ciidamada beelaha ciise iyo sidoo kale ciidamada militariga somalilan iyagoo wax dhibaataa aanan isku qabin ayayna macaamileen, tani oo ka dhigan in la fulinayo amarka madaxweyne cabdiraxmaan ciro. waxa uu markaan go'aansaday ayaa la yidhi inuu si toosa u tago deegaanada galbeedka somalilan, laakiin beesha ciise ayaa hadda waxay u muuqataa in ay taafar dheeraatay, waxayna doonaysaa in gebi ahaanba ay ka hortagto safarka madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu ku tegayo magaalada boorame iyo sidoo kale magaalada saylac oo ah xarunta gobolka salal, tani oo muujinaysa ayaa la yidhi waqti xaadirkan sida somalilan ay u doonayso in arrimahan ay ka hortagto. madaxweyne cabdiraxmaan ciro dhaliilo xoogan ayuu wajahayaa, waxaana dadka qaar ay soo jeedinayaan inuu qaado tallaabooyin military, laakiin isagu waxa uu leeyahay wax kasta waxaa wanaagsan in xal loo raadiyo, xalkana laga eego. si taasi ay u dhacdana waa in gebi ahaanba reer somalilan ay gacanta isqabsadaan, ciidamada somalilanna diyaar uma ahan in ay xabad ku ridaan shacabkooda. xeerka iyo buugga ciise ayaa ah wax ugu weyn ee hadda laysku hayo marka la joogo deegaanada galbeedka, waxaana xogihii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in somalilan ay ka go'an tahay in xeerkaasi gebi ahaanba sidii loo hakiyey dib dambe aan looga qaban deegaano ka tirsan galbeedka somalilan, laakiin beesha ciise maleeshiyaad kala duwan ayay soo gelinaysaa magaalada saylac iyo guud ahaanba gobolka salal. beesha samaroonna sidoo kale ciidamo iyo jabhado kala duwan ayay ku ururisay deegaano badan, tani oo ka dhigan ayaa la yidhi in gobolkan wax weyn ay ka soo socdaan. sidoo kale faragelinta wadamada shisheeye ee hadda la tuhunsan yahay ayaa iyaduna waxay keenaysaa ayaa la yidhi in xaaladdu gebi ahaanba ay faraha ka sii baxdo, tani oo keeni karta khatar xoogan oo sii kordhi karta. waxaana xogaha qaar ay tilmaamayaan in madaxweyne cabdiraxmaan ciro uu doonayo in arrimahan oo idil uu si fudud kaga dabaasho
sidoo kalena ugu dambeyn isaga oo nabadoona go-i shaalka inta xirto sida Cerigaabo oo kale ayuu doonayaa in halkaasi uu tago oo xaaladda uu dejiyo. waynu arki doonaa qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha isla halkan ayaadna ka daawan doontaa haddii uu eebba idmo. dhinaca kalena magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xalayto waxaa ka dhacay kulamo xoogan oo u dhexeeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah, waxaana kulamadan looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka sida laga yeelayay shirarka Kismaayo iyo Nairobi, waxaana shirarkan hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, waxaana qayb ka ah ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Kheyre, Cabdi Shirdoon Saacid, Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame. shirkan oo ka dhacay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa shir gudoomiyey madaxweyne Shariif iyadoo miiska la soo saaray qodobo fara badan, waxaana lagu ballamay in si degdeg ah la isugu tago magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa jira waa leeyahay waqti xaadirkan in siyaasiyiinta mucaaradka ee Shariif uu hogaamiyo ay doonayaan in iyagu ay gebi ahaanba ka madax bannaanaadaan farmaajo iyo kooxdiisa, iyada oo golaha samata bixinta iyo sidoo kale madaxda Jubbaland iyo Puntland ay ku midoobayaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. magaalada Kismaayo ayaa lagu wadaa 17 Diseembar in lagu qabto shir ballaaran oo isugu imaanayaan madasha mucaaradka, madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wakiilo ka socda bulshada rayidka iyo aqoon-yahano. shirka ayaana diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka dalka iyo jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. sida aan ogaanay kulankan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu falanqeeyo caqabadaha ku gadaaman hanaanka doorashooyinka, is-afgarad siyaasadeed oo qaran iyo sidii loo heli lahaa aragti midaysan oo ku aadan mustaqbalka dalka. dhanka kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka baaqday ka qaybgalka shirka Kismaayo. ila ka agdhow Farmaajo ayaana waxay noo sheegeen in uu aaminsan yahay in uu dhismaha madasha mucaaradka uusan ka mid ahayn, isla markaana uusan waxba ka ogeyn habraaca iyo ujeedooyinka shirka oo ajandihiisa hore loo dejiyey. Farmaajo waxa uu rumaysan yahay in shirka Kismaayo uusan ahayn qorshe qaran oo midaynaya talada dalka, balse uu yahay kulan si gaara loogu talagalay in lagula xifaaltamo madaxweynaha hadda talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Farmaajo ayaa kasii fogaaday mucaaradka markii ay ku hanjabeen in ay dhisi doonaan dowlad barbar socoto dowladda federaalka Soomaaliya haddii Xasan Sheekh Maxamuud muddo kororsi aado. shirka Kismaayo ayaa imaanaya xilli siyaasadda dalka ka jirta dood xoogan oo ku saabsan doorashooyinka, dib u habeynta nidaamka siyaasadda iyo doorka maamul goboleedyada. indhaha bulshada ayaana ku sii jeeda natiijooyinka ka soo bixi doona shirka, maadaama saameyn ay ku yeelan karaan jihada wadahadalka siyaasadeed ee dalka ee bilaha soo aadan. sidoo kale waxaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo ayaa isbahaysi xoogan helaya, sababtoo ah isagu hadda waxa uu gacanta ku dhigay madaxdii la safneed dowladda federaalka Soomaaliya sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug, waa Qorqor iyo Lafta Gareen, waxaana Farmaajo uu aaminsan yahay in isaga keligiis uu dhismi karo. qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha isla halkan ayaad ka daawan doontaa. ugu dambeyn qodobada caalamiga ayaynu gelaynaa. dowladda waddanka Iiraan ayaa gacanta ku dhigtay markab shidaal oo siday 6 milyan oo litir oo nafta ah oo warbaahinta dowladda Iiraan ay sheegtay in sharci darro loo tahriibinayay, balse lama sheegin cidda iska leh iyo macluumaad ku saabsan sida ay wax yar ka warbaahisay wakaaladda wararka ee Reuters. tallaabadan ayaa Iiraan waxay qaadaysaa kadib markii maanta warbaahinta Mareykanka ay shaacisay in bishii hore Mareykanku uu burburiyey agab military oo markabka Shiinaha ka yimid uu u waday Iiraan xilli uu marayay badweynta Indiya. sidoo kale markab laga leeyahay Iiraan laakiin caalam dal kale ku safray ayaa dhawaan lagu weeraray dalka Venezuela. markabkaasi oo shidaal waday waxaana weeraray dowladda Mareykanka ciidamadeeda, tani oo xaaladda sii adkeynaysa sidoo kalena gebi ahaanba cirka ku sii shareeraysa. dowladaha Iiraan iyo Mareykanka ayaa u muuqda inay isku hayaan arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabo kale, iyadoo oo Mareykanku uu doonayo in gebi ahaanba uu hoos u dhigo awoodda waddanka Iiraan. waynu arki doonaa qodobkan iyo waxyaabaha ka soo kordha. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkeena ugu dambeeyey gudaha Soomaalida iyo caalamka. ilaa dhamaadka haddii aad soo gaarto waxaan ku xusuusinayaa inaad channelka subscribe inoo saarto, qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran. waxaan ku soconaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe kaliya. safarkeena adiga ayaa ka dhimanaya suulka saar oo subscribe inoo saar channelka. mahadsanidin.